way adag tahay soo maahan in aad doorato qofka aad nolosha la wadaagi lahayd waqtigan la jooga aad bay u adag tahay waad baqaysaa wiilasha way baqayaan markaad weydiiso maxaad nolol u samaysan weyso wuxuu ku leeyahay gabar joogta ma lahan oo fiican gabadhii haddaad weydiiso waxay ku leedahay wiil fiican ma joogo su'aashaas hashaas jawaab ayay haystaan ayagoo dhan bal waayahay qof walba hadduu xun yahay yaa fiican yaan sugaynaa annaga ma jirto qof xun ma jirto ilaa meel buu ka wanaagsan yahay qof wanaagsan ma jiro meel buu ka xun yahay gabadha iyo wiilka isqabaan ayaga ayaa loo baahan yahay noloshooda in ay cishtaan in ay xifdiyaan mustaqbalkooda wiilka waa in uu isweydiiyaa gabadhan intay ka fiican tahay intaysa ka xun tahay meeshay ka fiican tahay waa in aan ka qaataa meesha ay ka xun tahay waa in aan ka tagaa waa inaad ka tagtaa meeshay ka xun tahay meeshay ka fiican tahay waa in aad qaadataa gabadhana sidoo kale waa in ay qaadataa ninkeeda meesha uu ka fiican yahay dabeecadihiisa xunxun waa in iska ilowdaa kadib waxaa dhici doonta in aad labadiina iskaamishaan oo reerkiina uu noqdo reer wada kaamil ah ilaan xumaatadii oo dhan baad iska ilowdeen soo ma guriga labada qof hal qof baa lagu tiirsan yahay oo sabarkiisa uu ku taagan yahay labada qof ee guriga wada joogto ma ahan laba qof sabar badan u fiirso qof baa sabarkiisu sareeya qof baa reerkaas uu ku taagan yahay gabadha mas'uuliyad baa saaran wiilka mas'uuliyad baa saaran nin walba yacni qof walba waa in uu is yiraahdaa mas'uuliyadda guriga adigay ku saaran tahay qof walba qofka kale in uu ku haleeya maahan waxaa jirto ninka in uu waajibaad leeyahay gabadha in uu kula dhaqmo waajibaadkiisa wuxuu yahay gabadhaas in uu qalbigeeda alaaliyo waxay jeceshahay u sameeyo haddaysan ahayn wax qaldan hadallada uu dhahayo in uu koontaroolo in uu sameeyo hadallo macaan badan inuu kula hadlo dhaqan fiican in uu kula dhaqmo yacni waad dareemi kartaa maaha sida aad naagtaada ula dhaqmi lahayd waxay ayada jeceshahay waad dareemi kartaa dareensii mas-uuliyadda guriga oo dhan in ayada ay saaran tahay waqti walba ku dheh adiga ayaa sidaan ah adiga haddaadan ahaan lahayd nolosheeda sidaan ayay ahaan lahayd sidaa ku dheh waa hadallada ay jecel yihiin gabdhaha aad bay ugu sii jilcayaan gabdhaha ayagana sidoo kale waxaa loo baahan yahay in ay nimankooda sidaa iyo si ka wanaagsan ula dhaqmaan aysan dhaqan xun ula dhaqmin edab ay kula joogaan familkiisa dadkiisa dhan ay ixtiraamto maxay ahaydii in ay sirtiisa iyo hantidiisa wax walba ay u xifdiso ay ahaato gabar qurux badan isqurxisa isnidaamisa jirkeeda ka fikirta waqti walba ninkeeda indhihiisa ay soo jiidan karto yacni waxyaabo badan ayaa jirto oo gabadha ninkeeda ayadana ay kula dhaqanto qof walba hadduu ka fikiro qofka kale qalbigiisa uu is yiraahdo qofkaas ninkaaga yuu kaa xumaanin naagtaada yay kaa xumaanin qof walba hadduu sidaa u dhaqmo waxaan ogahay familkaas in uusan baaba'ayn weligiisa waxaa jiro waxyaabo badan oo igu kalifay in aan ugu hadlo mawduucan waxaan arkaa gabdho yaryar oo 20 sano aanan gaarin 15 16 17 jiro oo 3 is caruur haysta oo garoob ah oo ku leh waa lay soo furay 3 nin ay soo furtay 2 nin ay soo furtay maxaa keenay sababtaas maxaa keenay waxaa laga yaabaa muddo badan in ay u soo saxriirayeen in ay nolol wadaagaan qofkaas oo la isku diiday xitaa oo yacni waxyaabo badan dhibaato badan ay soo mareen ugu dambeyn markay nolosha wadaagaanna fashilaa ku imaanaya 2 bil 3 bil 4 bil ka badan laysma qabo waa la soo kala tagayaa lagu leeyahay qof walba asagaa yaqaano siduu u badbaadsan lahaa mustaqbalkiisa ma ahan nolosha gurigaaga in aad isku kibriso mar haddaad tahay qof famil leh oo reer dhaqanaya kibir ma jirto warkiisa waa in aad ku dadaashaa mustaqbalkaaga in aad badbaadsato in aad ku dadaashaa caruurta idin dhalanayso in ay ku barbaaraan nolol qurux badan oo dabiicad wanaagsan ah guriga marka hore markaad doonaysaan in aad adinka naqataan dad wanaagsan oo farxad ku nool in aad naqataan haddaad rabtaan marka hore Allah subxaanahu wa ta'ala xarigiisa waa in aad adkeysaan aad naqataan dad Allah ku xiran guri cibaadada Allah ay ku badan tahay cabsiga ilaahay uu ku badan yahay markaas ayaad adkeen doontaa xiriirka qofka kula nool insha Allah aniga waxaan idin soo gudbiyay waxa niyadeeda ka guuxaya waayo waxyaabo badan ayaan arkay oo aan dhibsaday waxa laga yaabaa dad badan oo hadda i hor fadhiya in ay iiga sii khibrad badan yihiin laakiin waxaan idin soo gudbiyay intuu Allah subxaanahu wa ta'ala iiga fahansiiyay
waxaana jeclaystay in ay idin soo gudbiyo waayo waxa wanaagsan waxaa loo sii gudbiyaa qofka walaalkaaga ah inta yar aad taqaano qofka walaalkaaga in aad u gudbiso waa muhiim insha allah waxaan kaloo rajeynayaa wixii wanaagsan iyo wixii kale oo aan idin hayo ama niyadeeda ku jira in aan idin soo gudbiyo laakiin waa muhiim qofka bini aadanka ah noloshiisa in uu ka fakaro mustaqbalkiisa waxaan nahay dad muslimiin ah nooma banaana ma noo wanaagsana in aan mar walbo aan isku dhacno familka ama ninkii naagta isku dhacaan ay kala tagaan furitaanka waa shayga Allah subxaanahu wa ta'ala ugu neceb yahay shaydaan baa ku farxaya ma fiicna familka in uu si dhaqsi leh ku burburo si walba aad u celin karto familkaaga burburitaankiisa aad ugu adkeyn karto u adkay familkaaga ha u ogolaan in uu burburo si walba ha kuugu qaado